Aan idinku soo dhaweeyo saaxiibayaal hal su'aal. Ma kugu dhacdaa inaad buugga furto 5 daqiiqo kadibna taleefankaaga iska qaadato? Haa, waa sidaa oo kale. Sida aynu wada dareemi karno. Laakiin waxaan ogaaday in dhibaatadu aysan ahayn inaan caajisno, ee ay tahay inaanan haysan hab sax ah oo aan wax ku barano. Maanta aan wada barano 5 farsamo oo maskaxdaadu ay jeclaan doonto si ay wax u xasuusato muddo dheer. Qodobka 3 iyo 5 waxay bedeleen gebi ahaanba noloshayda. Habka koowaad waa spaced repetition. Ma isku dayday inaad 10 dhan hal habeen ku barato? Waxaa dhacda inaad subaxda imtixaanka wax xasuusato, laakiin isbuuc kadib wax walba iska hilmaanto. Bal qiyaas inaad maalin kasta wax yar barato 15 daqiiqo ama ugu yaraan 20 daqiiqo. Maskaxdaadu way u aragtaa jimicsi joogto ah. Haddii aad haysato calendar ama application calaamadee maalmaha aad wax baratay, waxay kaa dhigaysaa inaad ku faraxsanaato inaad sii wado. Habka labaad waa mid aad u xiiso badan, waa retrieval practice. Isku day inaad maskaxda ka soo saarto wax aad baratay. Ha ku ekaan akhriska buugga oo keliya. Xidh buugga, isweydii maxaan hadda bartay. Haddii ay jawaabtu adag tahay, waa hagaag. Maskaxdaadu waxay dhisaysaa xiriir cusub oo xooggan. Waxaad samayn kartaa flashcards ama ku qori kartaa su'aalo yar si aad dib ugu tijaabiso naftaada. Habka 3 waa mid aan aad u jeclahay, waa Feynman technique. Ma rabtaa inaad ogaato inaad si dhab ah wax u fahamtay? Sharax sida aad qof kale u barayso, saaxiibkaaga, walaalkaaga, ama xitaa kaamirada taleefankaaga. Si fudud u sharax adigoo sheeko ahaan u sheegaya. Mar kasta oo aad meel ku wareerto, waa calaamad ku tusinaysa inaad halkaa xoogga saarto. Maskaxda waxay barataa si qoto dheer markay isku daydo inay wax sharaxdo. Qodobka 4 waa Pomodoro technique. 25 daqiiqo oo shaqo ah, 5 daqiiqo oo nasasho ah. Sidaas samee 4 jeer, kadibna naso muddo dheer. Sababta ay tani u shaqayso, maskaxdaadu ma jecla inay muddo dheer hal meel ku xayrnaato. Qaybaha yaryar waxay kaa dhigayaan mid firfircoon oo aan ka daalin shaqada uu hayo. Haddaba qodobka ugu dambeeya waa digniin. Ka fogow inaad buugga oo dhan midabaysid ama hal habeen wax ku baratid. Waxaa laga yaabaa inay kuula muuqato inaad wax baranayso, laakiin dhab ahaantii waxaad xasuusan doontaa waqti gaaban oo keliya. Haddaba halkuwaa isku day su'aalo, qoraalo iyo doodo. Taas ayaad maskaxdaada ku siinaysaa sabab ay wax ku xasuusato muddo dheer. Aan kuu soo koodo daawadaha sharafta leh. Baro wax yar maalin kasta. Isweydii su'aalo. Samee flashcards. U sharax wax aad baratay qof kale. 25 daqiiqo oo shaqo ah, 5 daqiiqo oo nasasho ah. Waa habka Pomodoro technique. Ka fogow highlight keliya iyo cramming. Midkee adiga kuu shaqeeya? Haddaba saaxiibayaal, gunti iyo gunaanadkii muuqaalkan, waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aal ah. Mid ka mid ah farsamooyinkan ayaad isku dayi doontaa marka xigta? Nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar. Sidoo kale nagu soo biir adigoo subscribe saaraya. La wadaag saaxiibada si ay uga faa'iidaystaan. Aad baad u mahadsantihiin. Intaan muuqaalka mid la mid ah ku kulmayno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.